markaan ogaaday raqamaadkooda iyo diinta ay sheeganayaan in been ka tahay oo aysan ku dhaqmaynin waxaan go'aansaday inaan ka soo baxsado. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 14aad guutada 14 Oktoobar ee ku sugan degmada Marka ayaa soo bandhigay horjooga Sid Cali Cabdi Borow oo isku soo dhiibay gacanta ciidanka dawladda ku dhawaad muddo 5 sano oo ka mid ahaa kooxda. markiisa ugu horeysay ayuu kaga biiray deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay qoyskiisu deganaayeen. inta uu ku jiray kooxda ayuu sheegay inuu ka qayb qaatay hagardaamooyin dhowr ah oo shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyay iyo dagaallo kala duwan. Cabdi Borow Shabeellaha Hoose ayaan ku dhashay gaar ahaan ku soo barbaaray inta Qoryoole Hoose 5 sano ayaan ka mid ahay waan soo shaqeynaa intaas aan ka tirsanaay jabhadda markuu wareyso waxaan ugu biiray deegaanka Janaale. gaashaanle Cabdiraxmaan Maxamed Munye taliyaha ururka 14aad guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay qaabka uu ula soo xiriiray Sid Cali Cabdi Borow iyo sida ay u soo dhaweeyeen iyadoo dhanka kale taliyaha uu ugu baaqay dhalinyarada kale ee weli ku jira kooxda inay isku soo dhiibaan gacanta dawladda oo ay ka tanaasulaan fikirka qaldan kana faa'iideystaan cafiska. meeshan maanta ku soo dhaweynay nin iska soo dhiibay nimankaas ka soo tagay kadib markii jabkoodii iyo kaliyaacooda iyo waxa ay kala kulmeen bulshada meel walba ay joogaan. ninkan oo iska soo dhiibay deegaankan Jilib aduu taariikhda markay ahayd 17 bisha tan hadda aan ku jirno marka anagana waan soo dhaweynay kadib markay nagala shaqeeyeen qaar kamid ah muqaabaraadkeena anaga ayaga aan ku dhaxleenahay iyo muqaabaraadka xoogga dalka Soomaaliyeed aska kaashaday dan waxay noo suurtowday in uu soo dhiibo ninkan walaalkeena maanta garabkeena fadhiya kadib markuu ku soo arkay dhibaatooyinka isagaba indhihiisa ku soo arkay marka waxaan rajaynayaa in sidii uu filayay si ka wanaagsan inuu arki doono dawladdiisu isku soo dhiibay dadkiisu isku soo dhiibay deegaankiisu isku soo dhiibay waxaana la macaamili doonaa hadduu Ilaahay idmo ahsan mucaamala sida ugu wanaagsan. horjooga Sid Cali Cabdi Borow oo muddo 5 sano ah ka barbar dagaalamay dhanka argagixisada ayaa cadeeyay ugu dambeyn inuu go'aansaday ka tanaasulida fikirka gurcan ee kooxdan. Sid Cali ayaa ka dhawaajiyay inta uu ka mid ahaa argagixisada in uu indhihiisa ku arkay ficillo ka fog diinta suuban oo ay dadka Soomaaliyeed u geysteen kooxda argagixisada. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo har iyo habeen u taagan difaaca qarannimada ayuu kaga mahadceliyay soo dhaweynta diiran isagoo ugu baaqay dhalinyarada kale ee ay saaxiibada ahaayeen ee weli duurka ku dhuumaaleysanaya in ay ka tanaasulaan fikirka qaldan ee ka fog sharciga islaamka. sidoo barto wax wanaagsan ma ahan nimanka horta niman diin ay sheeganayaan diin ay ku qaldeen marka hore waxa ay sheeganayaan wax diina ma ahan diinta way sheegtaan maana kama dhaqmaan. sidaas daraaddeed markaan ogaaday raqamaadkooda iyo diinta ay sheeganayaan in been ka tahay oo aysan ku dhaqmaynin waxaan go'aansaday inaan ka soo baxsado aan is soo dhiibay ciidanka dawladda marka dhaqankooda u bogi waayay waxa ay wataana diin ma ahan diinta way sheeganayaan maana kama dhaqmaan. tan ka tirsanayo oo aan ku soo arkaya ummad fiican ma ahan ummadaas waxay ku dhaqmayaan wax oo fiican aad u bogaysa ma ahan wax hadda qaldan oo aan ka soo arkayna waxaa ka mid ah ninka muslimka oo toosan oo shahaadanaya oo la soo qabanayo hadiiba oo la shaki oo laga arko kawlis kaga siinayo saaxiibadaas waxaan ugu baaqayaa marka hore hadda fursada taalo fursadaas inay ka faa'iideystaan ciidanka dawladda aad joogto dawladdaas inay soo dhibanayaan ugu baaqayaa. Aweys Muumin Xasan Aweys okay idaacadda codka ciidamada qalabka sida Marka Cadeey.